الغابة والشجر لا تهدي الضياء لها يا قمر لا تهدي الضياء لها يا قمر. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa inaan halkan kuugu soo gudbiyo xikmado noloshaada wax ka beddelayo. adigana waxaa lagaa rabaa inaad dhuuxdo casharna ka barato kalaamyadan aan halkan kuugu soo gudbinayo. waa orahayo qof walba oo raba inuu noloshiisa xakameeyo, horumarna ka gaaro, anfacayo. haddaba maxaan sugaynaa? aanu bilowno. xikmadda koowaad ayaa waxay odhanaysaa: caawi dadka in ka badan inta ay kaa filayaan, weliba caawi adiga oo jecel inaad caawisid. ha rumaysan wax kasta oo aad maqashid, ha wada isticmaalin waxa aad haysato ee barkaydso. hana seexan hurdo badan oo ku seejisa dantaada iyo wixii aad qabsan lahayd maalintaas. marka aad qof ku dhahaysid waan ku jeclahay, dheh adiga oo ay dhab kaa tahay. aamin in jacaylku ku dhalan karo qofka aragtida ugu horraysa. jeclow qof jacayl dhab ah oo xiiso badan leh. waxaa dhici karta in qofka aad jeceshahay kaa tago, taasna waxaad ku dareemi kartaa nolosha dhabta ah, waxaadna ka baranaysaa cashar. dadka meel ha kaga dhicin oo ha caayin, waayo adiguwa ma jeclid in lagu aflagaadeeyo. si deggan u hadal, laakiin si dhaqso ah u fikir. haddii uu qofku weyddiiyo su'aal aanad rabin inaad ka jawaabto, u ilka caddee oo weydii: maxaad u rabtaa inaan su'aashan kaaga jawaabo? weydii qofka waxa ay jawaabtaadu muhiim ugu tahay. qofka hindisa u ducee oo tus inay diinta islaamku naxariis tahay. isfahamid la'aan yari yay kaa duminin saaxiibkaaga dunida ugu qaalisan. mar walba dhanka wanaagga, ma adigaaba i fahmay. marka aad aragtid inaad qalad gashay, si dhaqsaa u sax. marka aad ka jawaabaysid telefoonkaaga, ilka caddee. qofka kula hadlaaya waxa uu maqlayaa ilka caddayntaada, waxa uuna dareemayaa inaad xushmad u hayso. ma adigaaba i fahmay. soo dhowee fikirka ah inaad isbeddel samayn kartid, laakiin ha ka tegin waxa aad aaminsan tahay. xasuusnow in ay aamusnaantu mararka qaarkood tahay jawaabta ugu wanaagsan. nolow nolol wanaagsan oo qiimo leh, mar walbana sharaftaada kor u qaad, oo ha isqiimo tirin. marka aad gabowdo, xusuuso wanaaggii ku soo maray, si aad mar kale uga heshid dareen fiican wakhtigaagii wanaagsanaa ee ku soo maray. aamin dadka, laakiin albaabka gurigaaga xidho. ma adigaaba i fahmay. wixii aad og tahay ee faa'iido leh u sheeg dadka kale, ha kula qaybsadaane. taasina waxay kaa dhigaysaa inaad noqoto qof weligii la xasuusnaado oo dad badani ay yaqaanaan, sharafna lahaa muddadii uu noolaa. weligaa ha goynin xidhiirka qofka ku tusaya wanaagga. sannadkiiba u bax meel aanad weligaa arag, ha ahaato waddan kale, magaalo kale, xaafad kale, kayn kale ama duurduur kale. haddii ay ku soo gasho lacag badan, u maalgeli si ay dadka u caawiso inta ay nool yihiin. isku day inaad baratid sharciyada oo dhan, oo qaarna aad jebisid. waxaan bartay in aysan muhiim ahayn maxaad hadda haysaa, laakiin ay muhiim tahay xaggee daqiiqaddan kadib rabtaa inaad gaartid. waxaan bartay in wax kaste oo aan u aragno inay weyn yihiin oo adduunkan yaal ay markii hore ku bilowdeen fikrad yar, kana bilowdeen wax yar. waxaan bartay in farqi weyn u dhexeeyo tijaabinta badan iyo ka quusqaadashada. waxaan bartay in dareenka wanaagsani uu yahay kii naftaada ku qanacsan tahay, adigoo ogsoon waxa aad samaysay inay wanaag ahaayeen. adduunka oo dhan hadduu rabo ha kula ciloobo. waxaan bartay inay lagama maarmaan tahay inuu qofku isku dayo inuu sameeyo camal gaarsiinayo ilaa xiddigaha, laakiin uusan iloobin in lugihiisu ay dhulka joogaan. ha u murugoonin dunidan iyo waxa dhex yaal. dhammaanteen waxaan nahay marti. allaah wuxuu jecel yahay kan ugu cabsida badan addoommadiisa. hana noqon mid wakhti kasta doorbida waxa ay naftiisu jeceshahay oo keliya. caqliga dadka waa 3 nooc. caqliyadda waaweyni waxa ay ka hadlaan fikradaha iyo hal-abuurka. kuwa dhexena waxa ay falaqeeyaan arrimaha bulshada. laakiin dadka caqliga yari waxay faaleeyaan dadka, waana ay dhaleeceeyaan. weligoodna ma sheegaan wanaaggooda. ma adigaaba i fahmay. nin indhala ayaa habeen u baxay inuu webiga biyo ka soo cabbo. wuxuuna u qaatay faynuus shidan. dadkii ayaa weyddiiyey: maxaad ku falaysaa faynuusta? ma waxbaad arkaysaa? wuxuuna ku jawaabay: waxaan u qaatay si dadka indhaha qabaa ay ii arkaan. ma adigaaba i fahmay. waxaan bartay in qofku uusan hoogin haddii uu khasaaro, laakiin uu khasaaro marka uu joojiyo dadaalkiisa. waxaan bartay in qofka guusha gaaraa uu yahay kan sabirka iyo dulqaadka u saaxiibka ah. waxaan bartay in hubka ugu weyn ee uu qofku helaa uu yahay sabirka iyo wakhtiga. waxaan bartay in qofka u khayr badan tahay inuu ahaado diindiin ku socda dariiqa toosan, inta uu noqon lahaa deero ku socota dariiqa halaagga. waxaan bartay in camalka wanaagsani uu aad uga fiican yahay hadal wanaagsan oo keliya.
waxaan bartay in furaha khasaaradu ay tahay inuu qofku isku dayo inuu raalli geliyo cid kasta. waxaan filayaa xigmadahan inaad wax badan ka faa'iiday. haddaba maxay kuu iftiimiyeen kelmadahan aan soo sheegnay? wixii aad ka fahantay hoos noogu soo qor. waa inoo muhiim fikirkaagu. waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.